والسلام عليكم بالشوي المحشش دوكستو war maxaad noo odhanaysaa miyaanad arkaynin marinka gurigaaga la moodo gudaafada waryaadheen war anuu waxaan ka baqanayaa inuu xashiishkaasi itiraafkana seejiyo oo horta anigu weli maan dhoofin laakiin mar walba waxaan daawadaa tv-ga madaxweyneena lagu soo dhaweynayo meel qurux badan oo wada dooga oo xabad xashiish oolin waxaa ka tismaa hadduu inaga itiraaf doonayne madax badanna way noo imanaysaay majeedadka wada xashiishkaa wayn kusoo dhaweynaa warwaarutiise dee aynu tashanno horta sideedaba xashiishkan ayaa ka mas-uula waxaa ku shaqo leh dowladaha hoose dowladda hoose lafteeda inoo geeya السلام عليكم. عليكم السلام. ما أنت واد دنتيني مديلة شرتا بسرد الدون باتين. ما يردول ما تشري مديلة حشيش كوين باشرتا. ما ير وحن دونينا إن أنا كاله هذا الله دبعت هذا حشيشك. والله صعدها ما ير إن مدحوينه هني رول قروح بدل جسور دوي. وحن نقوم مقالة إن مدحوينه يالبدني إن جسور فوليهين. سداس أوجد حالة بلعب مقالوين كاني ما أها مال مرتشرف لكاني كرو. إما حاك حاجة مالية على ماير. عنقو بانو دالي waxaanu samaynay shirkado gaar loo leeyahay oo ka shaqeeya xashiishka laakiin dhibaatada meesha talo waxay tahay bulshooy idinka ayaa xashiishkii meel walba ku soo daadiyay maayar anaga waxa noo ka keenay waa dareen aan ka qabno in dhibaatada xashiishka wax lagaga qabto shaqooyinka waa la kala leeyahay haddii ay bulshadu nala shaqeynayso saakaba kamaynu wada hadala xashiishka war amarkan iyo yaabkan baleega war bal shirkadahan uu maayirku sheegayo bal inoo garaaca ها الله يلهي هلو سو عفيسك قشقادك maaha ها wala soo dhaw maxaan ku qabanaa horta qashqaadka dhameeyda mas'uulkayn cidii lacagta bixiso baanu ka qaadnaa wali maan fahmin isku turturkan war bal wasaaradii deegaanka inoo garaaca هلو سو wasaaradii deegaanka maaha oo doorka wasaaradiina ee xashiishka dalkii qarqiyay muxuu yahay annagu qaranka waxaan qaabilsanahay arrimaha deegaanka iyo shuruucdooda iyo kormeerkooda laakiin fulinta waxa iska leh dawladaha hoose talow xisbiyadii ma garaacna war haaye maayaradii xildhibaanada iyaga inoo keenay inoo qaraaca هلو war soo xisbiyadii maaha ها wala maxaan ku qabanaa oo horta idinka xildhibaanadiina maxaa xashiishka idinka meel yaal annagu waxaanu qaabilsanahay dejinta siyaasadda qaranka iyo doorashooyinka xildhibaanada madaxweynaha ma u tagnaa maya wuxuu ina odhanayo wayn ognahay waruu ka warhaya ee maxaynu ka doonnaa weligii dalka waa joogay wax kastoo bulshada haystana uu ka warhaya war wadaadadii culimada aynu tagno oo nidhaahno wataa xashiishkii wax laga qaban waaye marka madaxa shisheeyuu inoo imaado aynu ku akhrino feesqaynahum fahum laa yabsuruun war xashiishku kuma baaba'ayo qur-aanka lagu akhriye waa kii sheekh bashiir hore u muujiyey oo culimmada intuu isugu yeedhay ku yidhi bilaalayaal intuu meel dhigay ku jajabiya qur-aanka oo ay ku jajabi kari waayeen markaa waxaasi tala maahee tala kala keenaa waxay ila tahay in waftiyada dalka imanaya marka ay airportka ka soo degaan loo geliyo muraayado dhulka ka dhigaya cagaar doog iyo xariir war waxaasi tala maahee waa in tala kale la keeno waa inuu qof kastaaba ogaadaa in nadaafaddu tahay waajib diiniya oo xilli naga saaran yahay sidayna looga rabo inaynu nafteenna u nadiifinno ayaayna looga rabaa inaynu waddankeenna iyo dhulkeenna aynu nadiifinno war haddaad heshay taladee maxaa ina xiijiyey oo ilaa madaxweynehayna socodsiiyey wuxuu ma qumbulo duriya miyaanay ahayn 4 warqadood 4 bocood waxaan aynu la yaabannahay maxaynu dibadda ugu soo daadinaa marka hore waa run ee waynu kala tegaynay waxaan ku tashanay haddii ay guri tahay iyo haddii ay meero tahayba iyo haddii ay shirkad tahayba in xashiishka lagu basriyo meeshuu ka soo baxayo ilaa intaynu helayno nidaam aynu ku wada shaqayno oo xashiishka lagu maarayo war miyaanaysa ahayn madaxaajiyadii gurigu soo baxdhe hee xaaji way kane war baan ku hayaa maanta waxay bulshadii go-aan ku gaadhay inaan xashiishka bannaanka lagu tuurin kumana tuuri kartid xashiishka xagga inoogu ururi haya xaaji gurigeenan ka bilaabayna